كورنيل معمر الغدافي hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa waddanka Liibiya waxa uu ahaa shakhsi muran badan ka dhexdheliyay gobolka iyo caalamkaba waxa uu ahaa shakhsi ay ku kala qaybsameen dadkiisu eray bixintiisa ku aadan doorkiisa siyaasadeed sifooyinka la yaabka leh iyo halka uu ku dambeeyay al-Ghadaafi معمر الغدافي waxaa ku dhashay sanadkii 1942 tuulo ku taal waqooyiga dalka Liibiya waxa uu ka soo jeeday qoys reer guuraa intii uu yaraa waxa uu ahaa mid jecel taariikhda dagaalka gumaysiga gaar ahaan ka hor imaanshaha wadamada reer Yurub ee dalalka Carabta markii uu waxbarashada dugsiga sare dhameeyay waxa uu ku biiray al-Ghadaafi ciidanka Liibiya isagoo tababar kala duwan ku soo qaatay waddanka UK sanadkii 1969 isagoo 27 jir ah ayuu afgambi military kula wareegay waddanka Liibiya isagoo afgambi boqortooyadii xilligaas ka jirtay waddanka Liibiya al-Ghadaafi markii uu xukunka Liibiya la wareegay waxa uu ku dhawaaqay in Liibiya ay noqonayso jamhuuriyad Carbeed waxa uu aasaasay nidaam uu ku tilmaamay hanti wadaag Carbeed kaasi oo ku salaysnaa buuggiisa cagaaran ama The Green Book waxyaabaha sida weyn loogu xasuusto waxa ka mid ah markii uu Korneyl Ghadaafi la wareegay talada waddanka Liibiya inuu soo saaray shidaalka iyo macdanta ku duugan waddankaasi isagoo Liibiya ka dhigay mid ka mid ah dalalka ugu qanisan qaaradda Afrika waxa uu kaloo sameeyay mashruucii ugu weynaa kaasi oo biyo nadiif ah lagu siinayay waddanka Liibiya waxyaabaha kale nidaamkiisa lagu xasuusto waxa ka mid ah inuu hogaamiye kale talsnimo ku caanbaxay aan ogoleyn mucaaradad xurriyadda saxaafadda iyo midda bulshada hor istaagay caburinta shacabka iyo dalalka siyaasadeed waxay ahaayeen mid joogto ah astaana u ah maamulkiisa sanadkii 2011 kacdoonkii Carabta ayaa gaaray waddanka Liibiya mudaharaadyadii ayaana isku bedelay dagaal la sokeeyay iyadoo wadamada NATO oo markii hore aan la dhacsanin xukunkiisa ay soo fargeliyeen ugu dambeyn Ghadaafi ayaa waxa gacanta ku dhigay mucaaradka 20 Oktoobar 2011 isagoo lagu deelay magaalada Sirta sanadkii 2011 taasi oo calaamad u noqotay dhamaadkii xukunkiisa muddo 42 sano ah socday معمر الغدافي waxa uu hogaamiye saameyn weyn laakiin siyaasaddiisa iyo nidaamkiisa kala tarsiimo waxay sabab noqdeen in dadku ay ka hor yimaadaan inkastoo uu sameeyay horumar badan haddana qaladaadkiisa iyo caburinta uu sameeyay waxay ku reebeen sumcad dil isla markaana taariikhda Liibiya waxay ka dhigeen mid ilaa hadda saameyn weyn ku leh Liibiya ayaa ilaa hadda waxay u kala qaybsan tahay laba dawladood iyadoo ay wili jiraan dagaalada sokeeye